السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. كسر هذا عشرة امتحانها برشة اللغة بايثون كل ساعتين جنرال كسي ار سمي. عشر كنا ما أنتوا عنكم قاعدين دون هدول اللي را functions كإني سوء لين كران multiple values returning multiple values. أنت عن أركي لغتها عن أقانو وبايثون واللغة كلية functions كيدو يسوء لين كران more than one value لغتها كلام waxay soo celiyaan hal value function waxay soo celisaa hal value feature-kan waa feature very handy ah oo useful ah mar badan ku anfacayo wuxuu ku suurtagelin karaa function-kaagii markay shaqo qabato inay dhihi karto shaqadii waxaa ka soo laabtay more than one value tusaale haddii aan halkan aan ku qoro waxaan kaloo rabaa inaan isticmaalo fikrad main function wax lilaa inaan sidoo kale idinku tuso oo function-keennii meeshii classka file-keennii meesha uu noqon lahaa just functions clear in uu yeesho intee wax ka bilaabanayaan code-ka oo functionskaas u yeerayay marka waxaa la dhex dhigaa function la yidhaha main ama mainline function waxaa marka hore marka aan abuurayaa functionkaygii aan rabay inay wax soo celiso kabacdina waxaan abuurayaa functionkii main markaas kadib ayaan u yeerayaa functionkii mainka functionka aan rabay inay wax soo celiso sidaan oo kale ay noqon doontaa waxaan leeyahay function laba magac soo celinaysa oo kale waxaan leeyahay def get underscore full name waxaa parameter ma qaadanaysaa leeyahay functionkayga functionkan marka waxaan rabaa markii loo yeero userka inay dhahdo waxaa soo gelisaa magacaadii koowaad waxaa soo gelisaa magacaagii labaad waxaan leeyahay first is equal to input waxaa soo gelisaa magacaagii koowaad enter first name ayaan leeyahay tusaale saarka labaad waxaan leeyahay userka waxaa soo gelisaa variable labaad abuuraya oo la second waxaan leeyahay userka waxaa soo gelisaa magacaagii labaad enter second name haddii aan fiirso labada variable laba magac ayuu soo gelinaya userka sidii aan ka rajaynayno kabacdina waxaan leeyahay functionkan return waxaa celisaa first comma second marka featurekan ah in laba shay ay celin karto functionka luqado badan oo anigu aan aqaano ma lahan functions waxay celiyaan hal value ay dhahan halkan laba value ay celin kartaa featurekan waa very handy very useful waaye dabcan python waxaa laga yaabaa inay arkeen luqadaha kale inay u baahan yihiin oo sidaas ay halkan ugu fuliyeen meeshii functionkan aan u yeeri lahaa oo aan dhihi lahaa get full name aan dhihi lahaa waxaa ka fiican waxaan sameynayaa inaan abuuro function kala abuuraya def main functionkan marka main waxaan rabaa programkayga collection of functions u noqon doona ugu dambeyn functional isu gegeeyey marka waxaan rabaa 10ka function ama 20ka function uu ka kooban yahay functionkan main inay noqoto meesha entry pointiga ah oo programkaygu hadhow uu ka bilaaban doono main waxaan leeyahay marka tusaale ahaan first waxaa rabtaa u bixin kartaa dabcan magacu qasab maaha inuu la mid ahaado kii aad soo bixisay inuu la mid ahaado qasab maahan waxaan leeyahay first comma second is equal to laba variable ayaan waxaan leeyahay waxaa ku shubtaa get full name waxaan isla aragnay aan ogeyn functionka full name sida halkan aan ku qeexnay inay soo celinayso first iyo second laba magac ay soo celinaysaa labadii magac ayaan laba variable u diyaarsada marka haddaa fiirso labada variable marka waxay rabaan noqon karaan first iyo second ayaa igula qurxoon sidaas ayaan u bixin laakiin waxaa rabtaa u bixin kartaa dabcan marka haddaan rabo waxaan dhihi karaa print waxaa soo daabacdaa first comma haddii aan rabo labadii magac ayaan isku daba qaban karaa first iyo tusaale ahaan waxaan dhihi karaa second waxaa soo daabacdaa magacii koowaad iyo magacii labaad functionkan marka mainka iyada lafteeda waa inaan u yeero marka functionkan mainka waa inaan u yeero si ay shaqadii ay qaban lahayd ay iigu qabato sorry main ayaan leeyahay markan u yeer haddaa fiirsa programkayga marka hadhow markuu programku weynaada sidan oo kale aan u design garayn doonaa waxaan abuuri doonaa hal function oo main ah mainkii ayaan u yeeri doonaa marka iyada ayaa waxay samayn doontaa inay functionskii kale u yeerto haddii functions kale oo badan oo programkii ka kooban yahay qaabkan ayaa programmiska waaweyn loo sameeyaa oo ah in programkaagii meeluu ka bilowdo oo main function ah ama mainline codena waa la dhahaa mainline functionkii mainka oo meeshuu program ka bilaabanaya leh iyo several functions oo kale functiono kaloo dhowr ah functionadas kale marka mainka iyadaa u yeeri doonto anigana hal meel oo mainka aan uga yeerayo oo keliya ayaan samaynayaa haddii aan programkan dhaho run ama execute wuxuu ku leeyahay waxaa soo gelisaa magacii koowaad haddii aan dhaho magacii koowaad waa cabdirasaaq magacii labaad soo geli
warsame wuxuu leeyahay cabdirasaaq warsame dabcan wuxuu rabo samayn karaa laakiin kaliya waxaan ku tusayay in functionkeenu ay soo celin karto more than one value halkii marba marka functionska python they can also return more than one value waxaan horey u aragnay functionkeeni tusaalooyinkeeni hore inay soo celin karto functionkii number ayay soo celinaysa aragnay hadda waxaan aragnay iyadoo soo celinayso string oo dabcan laba value ah waxay sidoo kale soo celin kartaa boolean oo yes or no ay soo celin kartaa haddii aad u baahato iyadana intaas ayaan kusoo koobaynaa casharkan waa ku mahadsantihiin waqtigiina wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh